Dheere. kulankii maanta wuxuu ahaa kulankeenii toddobaadlaha ahaa ee gudoonka gobolka Banaadir hase ahaatee kulamadii hore uu ka duwanaa kulanka maanta oo sababtoo ah waxaa nooga soo qayb galay ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre oo shirka maanta qaarkiis inteeda badan noo gudoominayay shirka maanta diiradda waxaan ku saaraynay amniga sida aad la socoto dhacdadii xanuunka badneed shalay ay ka dhacday degmada Wadajir iyo in aysan dhicin dhacdadaas oo kale iyo sida loogu hortagi lahaa ayaan maanta aad iyo aad aan u falanqaynay aan aga hadalnay ra'iisul wasaaraha iyo gudoonka gobolka Banaadir waa looga hadlay munaasabada ciida sida la socoto maalmo yar ayaa ka haray gobolka Banaadir aad buu iskugu diyaarinaya arintaas in magaalada ay dareento inay ciid tahay in magaalada la arko nolol inay jirto in dhamaan ummadda Soomaaliyeed ay u dabaaldegaan maalintaaseeto gobolka waxyaalo qorshooyin badan buu diyaariyay sida nalalka jidadka in maxaa la daaro in maxaa ay ka muuqato magaalada inay ciid tahay oo maalin farxadeed tahay waad arki doontaan maraba inaan ka hor dhaco laakiin wax muuqda baa arki doontaan labada bari soo socota hadii Ilaahay ra'iisul wasaaraha wuxuu magacaabay guddi heer qaran guddigaas oo anagana aan ka nahay gobolka Banaadir xubin shaqooyin badan socdo iyo abaabul sidii maalintaas loogu dawaaldegi lahaa kulley arintaas waxaa noo xil saaran gudoomiye ku xigeenka arimaha bulshada gudoomiye Eric warbixintana maanta uu naga siiyay guddiga uu shaqeynaya way kulmaan ayaga la imaan doona barnaamijkii loogu talagalay maalmaha xorriyadda Soomaaliya